محمد صديق دمي xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani waxa uu ku eedeeyay duqa magaalada Hargeysa in uu sameystay shirkad sharci darro oo cashuur ka qaata bulshada ku nool magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in shirkadaasi lagu magacaabo Chia Sol shirkadda Chia Sol waa shirkad private waana shirkad si sharci darro lagu sameeyay oo aan loo marin xeerkii iyo nidaamka ahayd in lagu dhiso وانا شركات معاشطون oo ay shuraaka ku yihiin maayarka iyo toddobaadna oo qurba jooga waa shirkad hadda shaqeynaysay 2 sanadood oo faa'iiday lacag ka badan 10 milyan oo magaalada Hargeysa laga sameeyay shaqada shirkadaasi waxay tahay shaqo hore u jirtay oo ay qaban jirtay dawladda hoose Hargeysa waaxdeeda balaaninka oo ahayd GIS ka Hargeysa muddo dheerna soo jirtay oo marka dawladda hoose sameynayso la qaadi jiray lacag shilin Soomaaliland oo 100 gaarin oo cashuur la laabay oo duplicate oo dhanna ay ka qaadayso shirkadda Chia Sol dhanna ay ka qaadayso dawladda hoose shirkaddani waxay ku leedahay 8 degmo ee Hargeysa 8 xafiis headquarterkeedu magaalada ku dhex yaala waxa haysta 2 nin oo Hindiya oo laga soo hayr gareeyay Dubai shirkaddan culays weyn waxay ku tahay ummadda reer Soomaaliland cashuurta ay qaado ee kalena waa cashuur culays leh marka koowaad waxay qaadaa $40 oo la yiraahdo soo eegis oo lagu soo eegayo dhulka qof kale oo ku dhaca xafiiskeeda marka lagu soo eego kadibna waxa qaadaa lacag u dhaxaysa $100 ilaa $360 dhulka 2 alif bay 2 alif ka $100 bay qaadaa oo file lagu sameeyo blogana waxa la qaadaa $360 GIS ka Hargeysa waxa qaadaa $40 marka dhulka la soo eegayo waana lacagta sharci darrada ah ee lagu naasnuujinayo toddobadina qurba joogta waxa qaadaa oo kala $100 ilaa $360 oo ah lacagaha blogga iyo 2 alif bay 2 alif waana runtii cashuur culayskeeda leh oo aanay umad u qaadi karin waxa la kordhiyay dawladaha hoose liisamadii cashuuraha 14% waxa hadda hindisaheega la wadaa in liisamada cashuuraha lagu wareejiyo shirkadda Chia Sol oo calaa liisan laga qaado $30 marka loo sameeyo taasina waa mid soo socota oo taagan heshiisyada Kenya culays dhaqaale waxa leh ansixintooda golaha wakiilada sida ku cad qodobka 3-aad fikradiisa saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo waajib tahay in la geeyo golaha wakiilada hadii uu jiro heshiis lala galay shirkadda macaashka cashuuraha iyo taklifaadka aan sharciga ahayn ee xeerjideynin dawladda hoose cashuur bay qaadaa adeegyaha loogu talagalay adeegyaday fulinaysa hadii la private gareeyo xashiishkii GIS iyo dhamaan waxa weey shaqada qaban lahayd oo aanay iyadu qaban kareynin de sabab cashuur umadu u bixisa garan mayno dawladda hoose markii hore bulshadu adeegyadii ahayd inay qabato uma qabaneen waana ku fashilayd waxa cod dheer ku sheegaynaa in shirkadda aan soo bandhignay ee samaysa adeega GIS oo hore uga jiray dawladda hoose Hargeysa inaan sharci ahayn inaan gol la horgeyn cashuuraha ay qaadayaan inay yihiin shacab cashuur ka qaaday shacab kale oo aan sinaba loo aqbali karin waxaanu soo jeedinaynaa markii hore wala ma jira habaabiyo umada xarika jirkeedii shirkadda waa kan madaxweyne xigeenka jooga waana shirkadda aad arkaysaan adeegan ay qabanaysan oo adeeg jiray waxay soo kordhisay ma cashuurta qaadaysa shirkaddanina waa cashuur culays umada ku ah oo sina loo aqbali karin Cabdiraxmaan Erdogan Nabad TV Hargeysa